wax badan ka ogow sababta keentay in fanaanada sanadkan 2023 aadka loogu jecel yahay qof kastoo Soomaalina ah uu aad u taageero. waa tuma fanaanada kaliya ee laba qof oo ku geeriyooday shalay magaalada Sheekh shil baabuur ku dhintay uga baxaysa fanka guud ahaanba. haddaba daawade intaanan kula wadaagin sababta ka dambaysay in ay fanaanadan caanka ka agayga Soomaalida ay fanka guud ahaanba ka baxdo sababta ka dambaysay intaanan kula wadaagin biliis waxaan ka codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay la soo follow garee wixii fikir iyo tusaalaana commentigoos noogu reeb muuqaalka loof noo saar aad baad ugu mahadsan tahay. war degdega fanaanada Najma Nashaad oo ah fanaanad aad iyo aad u qurux badan iyo body iyo jirba isku darsata ayaa guud ahaanba iyadoo waqti xaadirkan aad qof kastoo Soomaaliyeed rag iyo dumarba ay aad heesaheeda u jecel yihiin ayaa mar qura waxay social media gelisay kuna daabacday barta ay Facebook ku leedahay anigoo ah Najma Nashaad waxaan guud ahaanba ka baxay fanka Soomaaliyeed sababtoo ah waxay igu keentay maadaama aan waayay tiri labadaydii garab ee xagga muuqaalada iyo dhan walba iga dhisayay ay geeriyoodeen hoosna ay jiraan Allah ha u naxariistee. anigoo miyirkayga iyo taamkayguba joogo oo Najma Nashaad oo aad jeclaydeen biliis walaal waxaan kaa codsanayaa haddii aad ila jeceshahay fanka inaan ku sii jiro biliis adariska ii taabo haddii aadan ila jeclayna biliis loofka ii saar aad baad ugu mahadsan tahay. daawade haddaba barta commentiga hoosna waxaad noogu reebtaa haddii aad jeceshahay Najma Nashaad inay fanka ku sii jirto biliis commentiga hoos noogu reeb haddii aad rabto inay ka baxdana adariska taabab aad baad ugu mahadsan tahay daawashadaada taniya intii aan soo hadin haddaad nala joogteen waad ku mahadsan tahay loofka iska taaba aad baad ugu mahadsan tahay. Najma Nashaad naxdin darteed oo ay ka qaaday Mustafa Suleymaan iyo Liibaan Daahir oo maalintii shalahayd ku geeriyooday magaalada Sheekh shil baabuurna ku galay. dhimashadan ayaa sababtay naxdin weyn ay ka qaaday fanaanada Najma Nashaad inay guud ahaanba ka baxdo. halkani waa wararka Dahsoon Media.